الله لبدا دارون إفكا إفكا لغوار مايه آخرو لبنانيو لبنانيو الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaa jirtay su'aal iyo walwal ay dadku ka qabeen dadka u dhinta cudurkan uu hadda keenayo fayruska corona la yiraahdo maxaa laga yeelayaa su'aashaas baan rabay inaan wax yar ka jawaabo. ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa uga baryayaa walaalihii ku dhinta cudurkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembigooda dhaafo, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu shuhado ka dhigo. walaalasaan la soconno qofka markuu dhinto muslimka ah dadka kaloo muslimiinta waxaa ku waajibaya 4 waxyaabood sida hadda haddii aan soo qaadano kutubka abu shujaac wuxuu dhihi jiray wayalzamu fi lmayiti 4 ashyaa غسله وكفنه الصلاة عليه ودفنه. ugu horeyn waxay tahay in qofkii la dhaqo, in la karfano, in lagu dukado iyo in la duugo. maxaa marka hadda isbedelay 4taas waxyaabood? wax weyn horta ismaysan bedelin. midii ahayd dhaqitaanka taas baan suuragelaynin sida ay amartay hadda maalan halkan Sweden aan joogno hay-adda caafimaadka bulshada Folkhälsomyndigheten qofkii lama dhaqi karo waxaa dhici karta dhibaato inay ka timaado. waxaa marka loo gudbay in la kafano. waxaan dhihi lahaa cafwan waxaan maaragtay loo gudbay in loo gabagabeeyo tayamum baa loo gudbay. marka qofkiina dadkii waa loo ogolaanayaa waa loo gabagabeynaya. marka gabagabaysigaasna waa arrin sharci ah oo mar walba oo biyo in la isticmaalo ay suurageli weyso xataa qofka nool waxaa loo gudbaa in la gabagabaysto qof maalan hadduu xanuunsan yahay. marka waa arrin sharci ah qofka haddii qubays uu suurageli waayo biyihii in la isticmaalo ay suurageli waayaan in loo gudbo caradii. marka halkaas unbaa waxaa la isticmaalayaa caradii. kafantii waxba dhibaataa kama jirto, dadka waa la kafanaa sida caadiga ahayd. sidoo kale salaadina dhibaato kama jirto oo dadkii waa lagu dukadaa. un cadadkii baa la dhimay oo la yidhi 50 qof meeshaysan ka badanin. saa ogtihiinna fadliga wuxuu ku soo arooray nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofkii 40 qof ay ku dukato ilaa shafacahum allahu fiih ilaahi wuu ka shafaaca aqbalaa. marka 40kii waa la heli karaa halkaasna dhibaato kama taagna. sidoo kale duugitaankiina dhibaato kama taagna. sidii caadiga ahayd marka hore loo duugi jiray ayaa maaragtay loo duugayaa. haddii marka aan soo koobo dhibaato badan iyo walwal fara badan iyada uu jiro oo qofkii aan la booqan karin markuu jiran yahay haddana dhankan kale walwal weyn runtii kama jiro oo xagga qofkii in la marsiiyo waxyaabihii sharciga ahaa oo 4tii waxyaabood ahaa. in maaragtay dhaqitaankii unbaa wax yar iska bedeleen. dhaqitaankii oo gabagabaysi loo bedelay, kafantii waa la kafanayaa, qofkii waa lagu dukanayaa, waa la duugayaa. ugu dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inta xanuunsan ilaahay inuu caafiyo, inta caafimaad qabta ilaahay u ziyaadiyo, inta dhimata ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto, ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatadan uu naga faydo. rabbanaa inaa masana dur wa anta arxamu araaximiin. ilaahayow dhibaata nagu dhacday adigaana ugu naxariis badan inta naxariisata. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo naxariisto. ilaahay subxaanahu wa tacaala cusrigan yusri ha noogu bedelo. sala allahuma wasalim calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin.